نضيف مثلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. خير وعطي عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. سلام كذب كان بدأ يتعاوض حساب سنين على بطل جارهانا كمان بيرشين أكتبوا متكرر وحل السواي دل كان يدرس كذا أما ويران ليه شيء كريمة بيرشين أنت وحنا أردنا نسيب ظهره نقول extension lab لفت السنة شغال سوتي تيجي سنوات يمكن غرض من الشتي لبا أما إذا قال لي لبا extension lab وحنا أردنا نسيب ظهره هذه هذا وين سوى الجهري كل سومالي كل سومالي waxay u badanayeen in la helo doorasho heshiis lagu yahay oo keenta xasilooni iyo horsocod laakiin nasiib darro ma muuqato. waxaan wada ognahay taariikhda dimuqraadiyadda ee Soomaaliya weliba dhowrkii sano ugu dambeysay kufurka ama ordanka ahayd ee qora isku dhiibka ahayd iyo marxaladihii adkaa ee la soo marsay. waxaan wada ognahay marxaladihii ka horreeyay iyo dalkan wada uu soo maray. marka in xilligan lagu dhiirado iyadoo la heli karo in laga heshiiyo doorashooyinka in lagu dhiirado extension waxaan u aragnaa ka leexinaysa qaranka meesha uu ku socday isla markaasna muujinaysa xukun jacayl iyo kursi isku dhejis. waxaan wada ognahay madaxweynaha xilligiisa waxay ku astaysneed 8 February 2 bilood iyo 3 maalmood taqriiban ayuu joogay sharci la-aan madaxweynaha kursigiisa. haddana wuxuu ka shaqaynayaa in extension sharci darro ah sameeyo. baarlamaanka waqtigiisa waa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday. waxa kaliya maanta u furay waxa waaye wada hadalkaas iyo gobasha fidsan in laga gaaro heshiis loo dhan yahay oo keena doorasho muddo ah. dad badan oo Soomaaliyeed runtii maanta ma filayn in waxaan dhici karaa. insha Allah dad badan marka ay dhahayeen waxaas soo socda waxay u arkayeen inay tahay arrin suuragal ah, laakiin maanta waa taagan. laakiin waxaa isweydiin leh xaggee loo socda 4 sano iyo googo ayaa nidaamkan ka jira dalka. jid la xiro, dadkoo la cadaadiyo, xorriyaadkoo la qaado, awoodda lagu takfalo, intaasaa lagala kulma. dadka Soomaaliyeed waxay dul qaadanayeen 4 sano dhammaantood alla soo waxay ku dul qaadanayeen arrintaas si cad aan uga soo horjeednaa. waa diidanahay oo sharci darro. waxaan u aragnaa ammaanadii loo dhiibtay dowladda oo ay la dhumeen. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة ummadda Soomaaliyeed iska leh cidna kuma taqbali karto. marka waxaan leenahay hoggaanka dalka oo aan bartay soo noqon dad ilaa rushdi meeshaa ku socoto waa xaldin tahay. dalkaani waa dad jircan ma qaadi karo maanta extension. waa xaqiiq dhaqaale ahaan uusan u qaadi karin, siyaasad ahaan uusan u qaadi karin, bulsho ahaan uusan u qaadi karin. dhinacooda haddii laga fiirsho waxaan la soconaa dhaqaalihii dalka waa badbay iyo adihii mataqaanaa dowladda kulligood waxay barasha saarayaan ganacsatada
sidaas oo kale waxaa barasha la saaraya oo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan marka dulqaadka oo intaas la eg waxaa loo sameynaya jacayl annaga marka aan hadlayno uma jeedno qof gaara qolo uma jeedno waxaan ka hadlayno qarannimada shalay oo maanta iyadoo la iska celi karaa laga aamusa meeshaad aragtayna dadkiisa maanta ma rabno tiyo kalena waxaan rabnaa inaan gacmaha isqabsano ka hor nimaado sharci ku-tumashada waddada laga leexday ee khaldan inaan ka hor nimaado codkeena si dheer u sheegno ma wadno wax dhibaateynaya qaranka bal waxaan wadnaa wax toosinaya qaranka xaqa aan leenahay soo hogaaminay ka soo shaqaynay haddana diyaar waxaan u taaganahay oo waqtigaan u soo jeednana inuusan qofna la kulmin qaranka iyo masiirka umma qofkii raba madaxnimo waxaa loo ogol yahay inuu doorasho galo waxaa laga hadlaayo waa doorasho xura xalaal ah oo dhan dalkan 30 sano lasoo dhaca ajnabi waxaa ku bixinaya madaxda Soomaalida intooda badan intay yimaadaan madaxista noqonaya iska baxaya laakiin waxaa nasiib darro in hadda meel kale nala sii aado hadda qofkii fursad haysta oo xalaal oo deganaasho ku intaas markaan ka gudbo caawa 12 abril waa habeenkii ciidanka kale waa habeenkii ciidanka militariga waxay ahaaday horta anuu hambaliyay anoo ugu hambalinaya magaca saaxiibaday hawsha qaran ay hayaan iyo difaaca dalka sugidda amniga ay ka qayb qaataan aad iyo aad ugu hambalinaya laakiin waxaa nasiib darro caawa in lagu soo aadiyo in ay berrito xildhibaan ama shacab ay kora afka ka geliyaan oo xorriyaddooda ay ku qaadaan aad iyo aad ugu xun waxaan ognahay fadhiga ugu dambeeyey xildhibaanaa laga saaray baarlamaanka laga joojiyey waxaana loo adeegsaday ciidamada qalabka sida marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waxay ku dhisay sharci waxaa loo dhisay inay ilaaliyaan sharafka iyo amniga iyo madaxbannaanida marna looguma talagelin in lagu qaado xorriyaad in lagu marooqsado xukun marka waxaan u baaqaynaa dowladdu amaro khaldan ay bixinaysa iyadoo waqtigeeda oo jirto waa loo soo dulqaatay iyadoo waqtigeeda dhammaaday inay amaro khaldan bixiso oo saraakiisha ciidamada u hoggaansamaan waa dembi aad iyo aad u weyn waana qarankiisuna ay ka qayb qaadanayaan ayna ka leexanayaan hadafkii wanaagsaneen oo loo aasaasay ciidanku waxay oggolaadeen naftooda waxay oggolaadeen waqtigooda waxay oggolaadeen dhiiggooda waxaana loogu talagalay inay ka hortagaan cadowga Soomaaliya waxaa la socotay ayadoo lagu mashquulsan yahay xukunka in lagu boodo qayb ka mid ah qaybna magaalada danfeeda Muqdisho oo ku dhammaanaya oo ku dacdaraysan yahay marka intaas waxaa sii dheer in la qaybiyey oo loo qaybiyey qayb dhow oo la baneeyo iyo qayb caadiga ka mid ah taasna waxaan u aragnaa burburin ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka militariga waxaan ugu baaqaynaa saraakiisha ciidanka inay ixtiraamaan sharciga una hoggaansamaan sharciga dibna u fiiriyaan waxa loo aasaasay waxaan rabaa inaan u gudbo shacabka Soomaaliyeed meel joogaan annaga marna uguma yeerayn wax qarankaan dhibaataynaya dadka laakiin waxaan ugu yeeraynaa waa in la ilaaliyaa sharciga marka waxaan leenahay dowladdu waxay ka leexatay sharcigeedii waxay ka leexatay sharcigii waxay ku gudubtay mandatekeedii waxay ku fadhidaa sharci darro haddana waxa ay samaynayso waa sharci darro marka waxaan leenahay dhammaan aan difaacno sharciga aan ku wada joogno waa sharciga in la difaacana waa muqadas maxaa yeelay jiritaankeena waa xiran ummadda waxa ay ku heshiisa waa inay fuliso marka annagoo heshiiskaas qaran ee ahay 4 sano madaxweynaha marka la qaaday xilligiisu inuu ku dhammaanayo 4 sano in la ixtiraamo waxaa loo ogol yahay inuu ka shaqeeyo hormuud ka noqdo dalka doorasho inay ka dhacdo laakiin nasiib darro ma dhicin ma raba inaan aad u dheereeyo hadalkayga laakiin runtii
dhibaatada ka imaan karta sharcigan laga digo bani aadamku marka khalad ogole ee laga aamuso khalad kale ogole ee laga aamuso u qaataa inuu saxayn laakiin ma saxa dadka Soomaaliyeed iyagoo arkaya ayay aamusnaayeen sababta ugu weyn waxay ahayd in la helo marxalad kala guur ah oo dadku codkooda ay dhiiba karaan waxaa laga hadli jiray muddo dheer one man one vote ama one person one vote taas iska daa hadda waxaa laleeyahay tii lagu heshiiyey waxaad ogtay midowga murashaxiinta heshiiskii ka dhacay uusan rab iyo kuwii ka dambeeyey xamar ka dhacay waa soo dhaweeyey qaybna kama ahayn waxaan u muuqda dulbilaalo fara badan intaasna waxay ahaan in la sahlo kulasho haddana waxaa dhacaya maanta waxaa arkaysi marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ciidamada qalabka sida shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka inay codkaas dhageystaan aad iyo aad madaxweyne inta aadan ka bixin baarlamaanka kulamo ay hore u yeesheen waxaa laga hadlayay in muddo kordhin ay sameynayaan laakiin ma dhicin marka caawa hadalkan tuunadii hore la xiriiraa mise wax xaqiiqa oo aad haysaan jirta waa maxamuud soo faysane oo 5TV ka tirsan mahadsantahay loo joogaa waa way ma